بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyo golow inaan xogaa bedelo sida aad u fakarayso waayo waxaan ogahay inay adag tahay in maskaxdaada laga saaro fikradda ah xoog looma shaqeeyo ee si xikmadaysan ayaa loo shaqeeyaa ku soo dhowaada meecaad podcast fadlan subscribe garee oo taabo jalaska si aan mawduucna kuu dhaafin ha ilaawin share iyo like. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. qof kasta oo Soomaali ah wuxuu ku soo koray nolol adag oo ku dhisan amar iyo qaylo. taasi waxay keentay inaan la weynaano dabeecadaas isla markaana ay saameyn ku yeelato nolosheenna oo dhan. maanta waxaan ka hadlaynaa waxaan u bixiyey kadeed ama kadeedane. kadeedane waa qof wax bartay ama aan baranba balse shaqeeya bariiskiisana la soo baxa balse wuxuu qabaa xanuun la yiraahdo kadeedane. xanuun ma aha ee waa dabeecad dadka qaar ay leeyihiin. waa qof maalinta oo dhan shaqeeya bisha oo dhanna aan maalin nasan xitaa jimcaha shaqeeya. haddaba si aan u fahanno aan sheegno sida qofkaasi u nool yahay. subaxdii wuxuu soo kacaa marka salaada subax la qiimayo siduu u cararayo ee uu si leeyahay weysada iyo labiska ka gaarsii ayaa salaadu ka tagtaa ama waa tixiyaadka ka gaadha keliya. shaqada wuxuu tagaa maalin walba isagoo habsana oo daalan. habeenkii oo dhan wuxuu ku habsaamaa shaqadii uu ka habsaamay oo dayacay. reerkiisa wuxuu soo gaadhaa xilli ay seexdeen. halkaana wuxuu ku waayay qofkaasi inuu nolosha qoyskiisa la qaato waxna ka ogaado. weligii qofkaasi meel cabaar ma fadhiin isagoo aan hawli habsan ka ahayn. weligiina qof wax ma tarin. noloshiisa oo dhan ayuu cararayaa qofkaasi. dhaqaalihiisa, caafimaadkiisa iyo horumarkiisana waxba kuma kordhaan. halkii uu sanadkii hore taagnaa ayuu weli taagan yahay. wuxuu qabaa kadeedane. haddaba maxaa keenay inuu sidan u noolaado? ilaahay cidna ma kalifo wax ka badan inta ay karayso. qof kastaana sida uu rabo ayuu u noolaan karaa. saddexdan qodob ayaa keena inaad horumari weydo wax kastood qabataana ay noqdaan biyo coldhaanshay. dib u dhigasho. qof kasta ay ku badan tahay howlaha inuu dib u dhigto waxa ku dhacda in noloshiisu ay noqoto mid aan isbeddel iyo raaxo lahayn. wax kasta oo maskaxdiisa ku jirana ma awoodo inuu ka midho dhaliyo. waalidkiisa, xaaskiisa, guddoomiyihiisa shaqada, asxaabtiisa dhammaantood wuxuu ka lumiyey wakhti badan oo ay ka sugayeen inuu hawshooda ugu dhammeeyo. isla markaana waxaa had iyo goor ku socda taleefan qof uu la ballamay oo hawshiisa u dhammayn waayey. qorshe la'aan. adduunka waxaa qorshe dejista 20% dadka ka mid ah. intaana waxaa guul ka gaadha 30%. laakiin waddamada Afrika iyo kuwa weli dhaqaale ahaan aan soo korin celceliskaa way ka yaryihiin. dadka yar ee lagu qiyaaso 20% ee qorshaha samaysta waxaa inta badan la sheegaa inay sameeyaan qorshe la gaadhi karo. sidoo kale mar kastoo ay niyad jab dareemaan boorka ayay dib isaga jafaan. dadka guulaha gaadhay waxay leeyihiin motiif ama dhiirigeliye ku riixa dhinaca ay u socdaan. marka inaad qorshe samaysataa waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto qof wax soo saar leh oo noloshiisa iyo ta bulshadaba wax ka beddela. noloshooda dhabta ah ayay dadka ka qariyaan. Soomaalidu waxay tidhaahdaa wixii aad qarsataa ku qarsadaa. waxaa cajiib ah in haddii aad isku aragto adiga oo qarinaya wax kasta oo noloshaada ku saabsan sida farxadda, cadhada, guusha, jabka, waxaa tahay qof kadeedan oo aan dadkana la tashan marka hore. hadhowna wixii dhaawac soo gaadha isaga ay ku koobnaato. had iyo goor qofkaasi wuxuu ku jiraa nolol u eeg sida qof ku jira qol madow oo kale oo hoos isula hadlaya. cidina ma aragto inuu meesha ku jiro, sidoo kalena cid maqli mayso. inta badan dadka waasha waxay u badan yihiin dad su'aalo badan isweydiiyey sidoo kale jawaabahooda iyagu isaga jawaabay. tusaale wuxuu odhanayaa masaakiinta maxay dadka ganacsatada ahi wax u siin waayeen? Etoobiyaan baa dalka haysta. dhallinyaradu maxay u tahriibaysaa oo wax loogu qaban waayey? waa su'aalo qof kasta isweydiiyo oo sax ah. laakiin qofka caaqilka ah wuxuu doonaa sidii arrimaha loo xallin lahaa. isaga ayaana qayb ka noqda xallinta arrimahaas iyo kuwa la midka ah. ha la dhuuman wax kastoo noloshaada ku saabsan. taasi waxay keenay in arrimo dadku kaa caawin lahaayeen ay kugu keenaan burbur iyo guuldarro. ugu dambayn waxaynu ku soo gabagabaynaynaa qeexidda ama macnaha in qofka noqdo mid wax soo saar leh noloshana ka faa'iidaysta. maxay tahay productivity ama wax soo saar? wax soo saarku waa xaddiga micnaha iyo tayada shaqada ee aad qabashadeeda maamushay.
badanaana waxaa la gaadhaa iyadoo la yaraynayo waqtiga badan ee ku luma dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka, iyo ujeeddada guud ee lagu gaadhayo halka aad u socoto, ama waa adiga oo sii diyaarsanaya waqti fiican oo aad ku qaban doonto shaqooyin dhaxalgala. Caaisha, ilaahay ha ka raali noqdee, waxaa laga soo wariyey in nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu jecel yahay haddii midkiin camal samaynayo inuu wanaajiyo. ilaahay camaladeenna iyo shaqooyinkeenna ha ka yeelo kuwo midho dhala oo baraka leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.